Guddiga hawlaha guud ee amniga iyo wacyigelinta oo kamid ah 4 guddi oo ku dhawaaqay madaxweynaha dawladda PUNTLAND ayaa waxa ay tageen suuqa weyn ee magaalada Qardho waxaana ay guddiga soo kormeereen sida ay u socoto nadaafadda laga sameeyo goobihii ay daadadku saameeyeen sidoo kale waxa ay soo qiimeeyeen dhibaatada gaartay goobaha ganacsi gaar ahaan baqaarada ayagoo dadka ka caawiyay hagaajinta iyo nadiifinta goobahaasi ugu horeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta PUNTLAND Cabdisalaan Xaaji Saciid ayaa warbaahinta la hadlay waxaana uu sheegay guddigan iyo waxyaabaha uu qaban doono guddigaas madaxweynuhu magacaabay wuxuu ka koobnaa guddi qaybeedyo kala duwan dhowr guddi oo kala duwan guddigan hadda hareerihiina taagan waxa weeyaan guddiga hawlaha guud amniga iyo wacyigelinta waxa kamid ah saraakiil gudoomiyihii gobolka wasiiro iyo taliyihii qaybta la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha amniga taliyaha daraawiishta ee dawladda PUNTLAND sidaad la socotaan guddigani waxay rabaan inay soo bandhigaan oo ay tusaan guud ahaan dawladda PUNTLAND shacabka PUNTLAND iyo guud ahaan Soomaalida iyo beesha caalamka khasaaraha iyo dhibaatooyinka lixaadka leh ee magaalada Qardho daadadka iyo roobabku ay u geeyeen 24 saac la soo dhaafay gudoomiyaha gobolka Karkaar Saciid Maxamed Faahiye taliyaha qaybta booliska gobolka Cabdi Casayr Yuusuf la taliyaha dhanka amniga madaxweynaha dawladda PUNTLAND General Khaliif Ciise Mudan taliyaha ciidanka daraawiishta PUNTLAND General Yaasiin Cumar Dheere iyo wasiirka wasaaradda hawlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta PUNTLAND Axmed Bashiir ayaa sidoo kale la hadlay bulshada una sheegay inay markasta dawladdu garab taagan tahay waxa la galay hawl culus oo guddiga kan aanu ka mid nahay halkan taagan hawshaas culus bay ku jiraan waana aragtaan in siday maanta u socoto baqaaradu siday u heelaaneen hawl ay ku qabsadaan oo wixii qashin ay iskaga saaraan waxay noqotay in loo nadiifiyo ridii iyo suuqii la mari lahaa ilaa iyo hadda waxa weeye waa aragtaan suuqi waa xiran yahay baqaaradii waa xiran yihiin qashinkiiba wuxuu noqday maxaa ka galay marka sidaas daraadeed hawl culus baanu halka ka wadnaa waxaan ka mid ahay ku taaranaya hadalkii gudoomiyaha gobolku yiri dadweynaha reer Qardho oo si fiican oo la shaqeeyay aana shacabka ugu fiican Puntland inay haddana nagala shaqeeyaan amniga nadaafadda dib u dhiska intaas baan ku taaranayaa marka waxaanu ka shaqeynaynaa marka ugu horeysa balorta inaan magaalada nadiifino oo habaaskii dhoobadan iyo laga qaado si ayna cudur uga dhalan waxaan kale oo ka shaqeynaynaa iyadana wixii meelo cufaysmay oo baabuur iyo ku cufaysmeen in laga saaro sidoo kale waxaanu ka shaqeynaynaa sidii wadooyin loogu helaa ay u kala socdaan gaadiidku waxaan kale oo ka shaqeynaynaa socodka wadooyinka gobolada iyo magaalada dhexdeedaba inaanu ka shaqeyno argada weyn oo magaalada laga soo galo oo iyadana aanu ka baqayno inay xoogaa wax gaareen sidii looga shaqeyn lahaa qadar lama celin karo laakiin dadku gacan weyn bay ku leeyihiin lafkoodu in dhibaatooyinka noocan oo kale dhacaan kadib markii meelihii biyo mareenka la digay markii meelihii biyuhu marayeen la xiray waxyaalahan oo kale ayaa dhacaya waxaanu dadweynaha u sheegaynaa in laga digtoonaado hawsha iyada ah in meelaha biyuhu fariistaaniin marayaan laga fogaado in meelaha biyuhu soo maraaniin dadka xirtay oo ama beera ka dhigtay ama guriga ka dhigtay oo cagafyada galiyay ay baneeyaaniin si biyuhu u maraaniin dariiqoodii sax ah aad iyo aad baan uga xunnahay khasaaraha meesha ka dhacay iyaga amniga iyo hawlaha guud inaanu nadiifino ama ka shaqeyno magaaladii meelihii biyuhu xireen bulshada waa aragtaan hadda halkan waxa ka socota shaqo waa magaalada bartamaheedii waa suuqi caanaha shaqadaas waxaan rabnaa in aan waqti kooban magaalada isu socodkeedii iyo bilicdeediiba uu si sax ah ugu soo noqdo waxa la diyaariyay qalabkii birta culus waxa la diyaariyay gaadiidkii qaadi lahaa waxyaabaha ciidda iyo xoolaha baqtiyay waxa kale oo diyaariyay ciidamadii ka shaqeyn lahaa bulshada u gurman lahaa waxa la diyaariyay birta culus oo ay ku jiraan wiishashkii waxa la diyaariyay team engineer ah oo ka shaqeynaya wadooyinka assessmentigii ku sameynaya meelaha biyaha xirmeen sababaha keenay shaqadaas oo dhan waa shaqo aad iyo aad baaxad weyn u leh haddana aan rabno inaan si emergency wax uga qabanno haddii aan marka bulshadu aysan la shaqeyn guddiyada kala duwan ee shaqooyinka u igman ay ugu horeeyaan bahda gaadiidka culus wadata ciidamada amniga haddaan bulshadu la shaqeyn waxa ma qaban karno Yaxya Nuur Muumin warbaahinta dawladda PUNTLAND magaalada Qardho